أصحابتا maanta park baan joogaa maasha Allah waad aragteen sida loogu raaxaysanayo halkani waxa weeyaan waa qaybta ma aragtay ay ku ciyaarayeen tiimamku ay ku xaroonayeen waxa weeyaan ama ma aragtay masquulahoodii ama meelaha alaabta dhigtaan area-dan waa area ama jikadiya ama ma aragtay meel community lagu sameeyo ma aragtay gathering qofkii ma aragtay hadday wax ku sameysanayaan maxaa la yiraahdaa ee la isu imaado dawladuna city council-kuna way karaysaa maanta arrin badan ma aragtay ayaan rabaa dadka aan fahansaneyn inaan fahansiiyo badana ground kasta oo ma aragtay area-dan deganahay waxay leedahay meel jika ah meel community-gu karayso asxaabe markaa maxaa soo kordhay hooyooyin baanu nahay summer baa lagu jiraa badana caruurteena dee ma aragtay southern hemisphere-gan aanu joogno waa very hot maalin oo dhan markaa galabtii iyo sabtidii iyo axadda iyo ayaanu yara baxnaa caruurtiina waxaanu rabnaa entertainment dadkan kale way naga dhaqaale fiican yihiin ama ma aragtay dee waddanka intaasoo generation bay joogeen marka dayno caruurtooda sida u entertain gareeyaan ayagu isu entertain gareeyaan badana indoors laakiin hooyo cayr qaadanaysa ama in yaroo shaqaa part-time ku tuuranaysa dis ma aragtay dhaqaalaha dadan siduu yahay yara adag way adag tahay markasta ilmaheedii outdoors inay la taagan tahay aad baan u qaylin haddaan hooyooyinka soomaalida nahay dhinaca nimankaanu aad u eedeynay oo inamadii dhowr inan baa markaa noo soo baxay maasha Allah ilaahay khayr ha siiyo indoors bay ma aragtay caruur kuwa group I think above 9 to 17 baa indoors lagu ciyaarsiiyaa waayo markii ma aragtay u baahan xoogooda ama ma aragtay ina busy laga dhigo physically caruurteeni games ha noqoto social media ha noqoto inta de guriye fadhiyaan marka wax ma aragtay maskaxdooda ka kiciya shape-kooda ma aragtay athletic ka dhiga oo caruurteena obese noqonin inamadii horta hawl weyn ilaahay khayr ha siiyo ayay noo galeen the last 2 years waxay ku dadaalayeen ama camping ha geeyaan ama outdoors ha geeyaan ama indoors ama ma aragtay every weekend ina annaguna baakiyaasha aanu fadhiisano caruurtana naloo ciyaarsiiyey ayagiyo habiya ayadoo halka ay noo marayso oo ma aragtay ilaahay noo keenay faraj dad noo ciyaarsiiya bilaa lacag ah dawladda hadday wax ka claim gareynayaan wax yar ka claim gareeyo active voucher iyo ma aragtay community group yar iyo ayaa naloo sameeyey maasha Allah haddaan hooyooyinka nahay kharash badan naguma soo dhicin because waad aragtay markaad ilmahaaga geynayso meel ku badad bariyahan hour baa lagu charge gareynaya bari baan nin weydiyo wuxuu igu yidhaahday $35 an hour 2 saacadood weeki minimum xitaa saacad ma noqon karto marka ilaahay baa waxa ma aragtay nooga raaxeeyay waxaanu helnay wax noo ciyaarsiiya laakiin haddaanu Soomaali nahay waxaad u malaynaysaa siiba dadka ma aragtay magaalada degan dadka kale wanaga maskax 2 sano markii la arkay inaanu meel fadhino oo nu habinahay caruurteeni noo ciyaarayso dhinacii ma aragtay kharashka aadna lagu sameeyay ilaahay ma aragtay wuxuu naga dhigay dad very unappreciative ah horta propagandada aanu bilownay dadkii noo sameynayay ma aragtay fariiga wax noogu sameynayay ama iyagu dawladda ha ka raadsadaan ama hawl ha geliyaan waxa la bilaabo ma aragtay in la target karayo community buu lacag ku qaataa kamu sidan ku sameeya si fiican caruurta looma ciyaarsiiyo durbaba negative attitude ayaa waxaanu gelinay dadkii heeganka noo ahaa inta shaqooyinkooda iyo hawlahooda iyo faamiliyashooda ka soo baxaan annaka ma aragtay
أنت مركا building كان إني تسيي waxaan inii tusayay 2 bilood ka hor baa waxaan bilaabay maxaa la yiraahdaa course aan sameynay coursadii waxa lagu yiraahdaa ama voluntary waa inaad maaragta dad aad voluntary ugu soo shaqaysaa ama within your community waa inaad wax aad u samaysaa you give back to the community waan eega maalin kasta ka sabtida soo fadhiistaa waxaana naajikada yare freega city councilka ah maadaama waxaagu community based yahay oo non profit oo faa'iido la ogolaan inaad ka faa'iido mad caruurta yaryar meelaha cararaya aad ma aragta aad uga faa'iideysi meeshii waa hot jikada ma aragta aad u gashiyo in yar oo ice cream ah iyo wixii ma aragta ay ku yara qaboobaan samarna uu soo socdaay intuna si fiican qoraxda u kulul aan u setup garee maxaa dhacay marka maqaayadii yarayd horta xaldaa baan ula baxay dhowr xabo ice cream baan keenaa cones baan keenaa insha Allah qaybta dambe aan la socodsiin doonaa caruurtii takes time meeshii waa back waa ina la baro anigii ma aragtay waa inaan koorsadan within 3 months ku dhameeyo laakiin tii ka dhacday magaalo marba isla qaylisa dumarka soo orday maxaad ka faa'iiday waad ku khasaartay waad ku kan qof kasta waxaan u sheegaa inaan meesha aan work experience ku wado shaqo daakhiliya waxa la idhaahdaa waxaan ku dhahay don't worry waa caruur yar waa $2 waxaan hadee ugu badan waa $20 $30 waxa la yiraahdaa in time horta waxaan ka helo waxa ma aragtay community-ga jikada city councilka iskala leedkii ayaga iskale waxa la yiraahdaa sinkiga ayaga iskale the reason waa inaanad waxbana ka faa'iidin haddaad ka faa'iidana you bring back to that community marka aad u sameynayso hadday soo ka clubta inaad soo ka clubka ku celiso hadday wax kala tahay inaad meel kale ku celiso laakiin Soomaali markaan leeyahay little knowledge waa very dangerous waxayba igu noqdeen ma aragtay waan ka harsan waay waan ka fariisan waay telefoonada wax maxaad ka faa'iida maxaa sida niman ba halkan mar naaga halkan mar waa lagu qosl walaalayaalo meesha horta waa community-gu macnaheeda marka la leeyahay waa inuu for non profit meeshan aan hadda ku qabanayo waxa weeyaan waa bowling club waana community meel ciyaareen leedahay way kareeyaan day kuraasida leedahay maqaayadaha leedahay waa yeelka ku ciyaara gooniba u goosteen halkan waxa weeyaan waxa loogu talagalay basketka ama volleyballka ah waa tala ciyaarayo waxa marka community la yiraahdo waa dadku inay ka faa'iideystaan bila kharash Soomaali mariyooleeyada maqaayadaydi warkaan iniga dabageeyay waa la qayliyay sidii kaana ma aragtay inaan furtay ma aragtay meelahan maxaa la yiraahdaa anshaxumada lagu sameeyo aniga yaab war meeshu waa jikiya ice cream warmay waxan gaadhay may maxaad ka faa'iiday marka asxaabi markaan leeyahay little knowledge macnaha community maxaan maqaayada u furay waxaan u furay fast horta inaan anigu ka faa'iido on work experience-ka inta naag hindiyeed ama cadaan aan voluntary weydiisan lahaa maalin kasta ay odhan lahayd soo shaqo tag inaan anigu aan dib community-ga ugu celiyo caruurta iyo dadkii meesha jooga hadday biyo qaadanayaan hadday shaax qaadanayaan hadday wax qaadanayaan inay qaataan laba mustaqbalka meesha inaan xoogeeyo caruuraheen iyo hooyooyinka iyo inamada hadda community work loo soo diro inay meesha ka faa'iidaan oo ma aragtay aanu ka dhigno wax inta la bilaabo socda waxyaalo badan oo community based ayaa maanta inta Soomaaliyeed aan arkayay hagaagay marka bal horta waa loo dejiyaa